madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta aqalka martida ee magaalada Kismaayo ku qaabilay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madera iyo taliyaha ciidamada AMISOM Tigebu Yilma iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM. soo dhaweyn kadib kulan gaar oo ay madaxdu yeesheen ayaa laga hadlay xaaladaha amniga iyo sidii loo qorsheyn lahaa howlgallo cusub oo lagu qaadayo kooxda Al-Shabaab iyo arrimo kale iyadoo kulanka kadib ay saxaafadda si wadajir ula hadleen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in kulanka diiradda lagu saaray sidii la isaga kaashan lahaa xoreynta deegaanada maqan iyo sidii la isugu furi lahaa wadooyinka isku xira qaar ka mid ah magaalooyinka Jubbaland taas oo qorshaheedu uu dhawaanaha soo socday. madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrimaha doorashooyinka uu sheegay in la isla soo qaaday la iskuna raacay in hay'adaha amniga Jubbaland ay markaasi ku filan yihiin sugidda amniga Jubbaland iyadoo mas'uul ay Jubbaland ka tahay doorashooyinka dhawaan dhici doona ayuu xusay in ciidamada AMISOM oo mar walba wada shaqayn ay ka dhaxaysay ay sideedii ahaan doonto. madaxweynuhu waxa uu kale sheegay in arrimaha doorashooyinka ee dhawaan dhici doona ay sugidda amniga iyo dhammaan howlaha la xiriiraba ay Jubbaland mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay sida ay tahayna ay u dhici doonaan. waxa aad maanta looga farxad weyn in safiirka midowga Afrika oo qaabilsan Soomaaliya SRC-ga iyo AMISOM Force Commander taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya la taliyaha arrimaha nabadgelyada ee safiirka Mr. Swagle iyo saraakiisha sector 6 iyo sector 2 ee AMISOM ay maanta lagu soo booqdaan Kismaayo aad bay sharaf noogu tahay. waxaan ka wada hadalay waxay ahayd kow in la qaado operation iyo sidii howlgal loo samayn lahaa gaar ahaan wadooyinka afmadow iyo Kismaayo in la isu furo iyo wadadan kabsoomo iyo jidka howlgalka laga gelay hore operation soo jiitamaya in hawshaas dhaqaajinteeda hadda aan ka shaqeyno iyo qodobka labaad oo ah arrinta doorashooyinka Jubbaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada Jubbaland iyaguna ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaal ah u dhacdo oo amni ah. la isla sheegay Jubbaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay Jubbaland ku filan tahay hay'adaheeda amniga ah wax dhibaato ka jirana ayna lahayn wax badan oo propaganda oo aad Soomaalidu isticmaashaan wax asal yaraan Soomaaliya ayna lahayn. AMISOM iyo Jubbaland wixii hore uga dhaxeeyay waa ka dhaxeeya gacan ku haynta iyo meel cidda gacanta ku haysana Jubbaland waxay gacanta ku haysay way ku haysaa. electionka Jubbaland inuu yahay election u yaala Jubbaland siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo sida noqon lahaa waxa laga sugayay ay taasana loo ballan qaaday inuu dhacayo election xor ah fair ah aan dhibaato lahayn. aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa AMISOM ma kala maarmayno waxaan uga baahanay wixii dan marba laga soo gasho si aan walba wada shaqayn jiray oo wada shaqaynayno ma jiro wax cusub oo anaga AMISOM aan lagu soo kordhay ama dhexdanada ka jira midna ma jiro. aad baad u mahadsantihiin arrimahaasna waxaan isleeyahay si fiican baan isaga afgaranay. wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay soo dhaweynta waxaana uu sheegay in ciidamada AMISOM ay u joogaan Soomaaliya sidii Soomaalida ay uga taageeri lahaayeen arrimaha nabadgelyada isagoo dhinaca kalena ka hadlay warar been abuur ah oo la isla dhaxmaray oo ku saabsan in wax ka bedel lagu sameeyay ciidamada AMISOM ee ka howlgala deegaanada Jubbaland waxaana uu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo wax ma jiraan isla markaana ciidamada AMISOM ee kala duwan ee ka howlgala Jubbaland ay sii joogi doonaan goobaha ay ku kala sugan yihiin. So it is very important that the community and the people know that we are here to support and help empower the Somalis to take over the security responsibility of their country.
wararka sheegaya in ciidamo amisom ah laga wareejiyay airportka laguna wareejiyay ciidamo kale oo amisom ah warkaas waa been. These are rumors. The structure, the way it is organized, the sectors where they are, they will remain where they are. qaab dhismeedka amisom iyo meelaha ay kala degan yihiin isma bedeli doonaan wayna u joogi doonaan sida ay hadda u joogaan. ruux walba oo sheegaya wax kale oo aan ahayn warkaan aan idiin sheegayo been ayuu sheegayaa. mana ahan in warkaas run loo qaato sababtoo ah dadka qaar waxay khubaro ku yihiin sida beenta loo sheego. Whoever says other things is a lie. Don't take it seriously because some of them are experts in lies. But I also told President Maduro that waxaan u sheegay madaxweyne Axmed inaan jecelnahay isla markaana aan rajaynayno inaan aragno Jubbaland oo ay ka dhacdo doorasho xor, xalaal iyo cadaalad ah una dhacdo si nabad ah. waxaan sidoo kale u sheegay madaxweyne Axmed in shaqada amisom ay tahay garab istaaga iyo ilaalinta nabadda Soomaaliya.